Assalaamu calaykum. Asxaabtayda qaaliga aad baan idin salaamayaa. Maanta waxaan idiin soo qaadayaa barnaamij yar oo ka sheekeynaya xariifkan jaakada cad xidhan ama fanaanada cad. Ninkan waxa uu saaray maxkamad ku taala dalka Kenya. Haddaba maxaa uu sameeyay ninkani? Ninkan habeenada ka mid ah isagoo wadada dhinaceeda socda, waxaa qabtay ciidamada booliska. Kadib waxay isku dayeen inay su'aalaad weydiiyaan, balse waxay ka dareemeen in uu dareemayo khalkhal iyo cabsi aad u weyn. Kadib waxay weydiiyeen, xagee ayaad ka timid? Waxa uu yidhi xaggaas ayaan ka imid, isagoo u sheegaya inuu magaalada ka yimid, balse xaggii magaalada uu ka yimid magaalada ma ahayne waxay dhankii xaafadaha. Kadib waxay weydiiyeen, miyaad cabsan tahay mise waad qaylsan tahay? Wuxuu ku jawaabay maya, xaaladeedu waa caadi, jawigu waa uu degan yahay. Kadib waxay ku sameeyeen sida sharciga ah fatashaad ama baaritaan. Kadib markii ay xariifkan baadheen, waxay isla markiiba ka qaadeen shandad uu dhabarka ku sitay. Shandadii markii ay ka qaadeen ayaa ciidamadii kalena waxay isku dayeen inay isagii baadhaan, balse ninkani indhihiisu markasta waxay yihiin shandada laga qaaday. Ciidamadu waxay awoodda saareen sidii ay u baadhi lahaayeen shandadiisa. Isla markii shandadii la baadhay gacanta la geliyeyba, waxaa gacantiisa soo raacday qoyaankaas oo ahaa casaan. Ciidamadii waa ay yaabeen. Isla markii ay baaritaan xoog leh sii sameeyeenna, waxay ogaadeen ninkaniba inuu sito hilib bini'aadan oo uu soo jarjaray oo weliba xubno ka buuxaan bini'aadanka ah. Haddaba ninkii markii la weydiiyey war waxaan waa maxay, waxa uu ku jawaabay ma garanayo, balse ciidamadii markiiba waxay ka codsadeen inuu geeyo gurigiisii. Xariifkii gurigiisi baa loo qaaday, waxaana la saaray ciidamada booliska gaarigoodii. Isla markiiba booliska iyo qayladaas qabsatay. Dalka arrintani ka dhacday waa dalka Kenya ee aan jaarka nahay. Xaaladdu halkaa markii ay marisay gurigiisii la gaaray, waxaa ninka gurigiisa laga helay hilib bini'aadan oo si xun loo jarjaray. Ninkani qofka uu dilay cid kale maaha, waa xaaskiisii oo weliba uu qurub u jaray. Xariifkani si kastaba ha sameeyee, waxa ka daran waxa soo socda. Ciidamadii boolisku ninkii jeebba ay qac ku siiyeen. Isla markiiba gaariga xagga dambe ay saareen. Ciidamadii dambi baarista ayaa la wacay, ambalaastii iyo dhammaan wixii shaqada ku lahaa goobtiisa ugu yimid. Haddaba xariifkan markii la wareystay ayaa waxa uu yidhi, waxaan aad arkaysaan wax ka daran ayaa jira, balse ma sheegin. Baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday xariifkani in uu dilay 42 haween ah muddo sanad gudihii. Waa 42 haween ah ama dumar ah ayuu waxa ku dilay sanad gudihii. Markii la weydiiyey xagee ayaad meydadkan iyo waxa weeye dadkan aad ku aasi jirtay ama aad geen jirtayna, waxa uu iska soo jiray xariifka jaakad cadde ma garanayo, balse baaritaan kadib ciidamada boolisku waxay baadheen kamaradaha iyo wadooyinka goobuhu mari jiray. Waxa ay soo heleen jawaano yaala iyo jawaano kale oo uu ku tuuray meel bannaan ah. Xariifkani waxa uu noqday sida larka ugu xumaaya soo mara dalka Kenya. Dhacdada ninkan uu sameeyay waxay ku beertay khalkhal aad u fara badan dhammaan shacabka dalkaasi ku nool. Haweenka Kenyana waxay tallaabadii koowaad ay qaadeen noqotay inay iska hubiyaan nin kasta oo ay baranayaan. Digniintana waxaa soo saartay dowladda Kenya, balse ninkani waxa uu sameeyay wax ka nixiyay dhammaan shacabka Kenya. Gurigiisii xitaa markii la sii fatashay, goob kastoo la taabto waxa laga soo saarayay hilibkii uu jarjaray. Xariifkani wuxuu ahaa manaxe iska qoslay oo aan kaba qasnayn. Xitaa markii ay ciidamada boolisku qabteen, kaliya indhaha ayuu ka daawanayay xaalad kasta oo meesha ka taagneed ama ay ciidamada Kenya ay sameynayeen. Intaana waxaan idinku soo gabagabeynayaa mid ka mid ah dilayaashii ugu la yaabka badnaa ee soo mara qaaradda Afrika iyo Kenya.